عليكم qeexida guusha waa maxay guul maxaase guusha lagu gaaraa guusha ma leedahay calaamado iyo sumado u gaar ah oo lagu garto guushu way macno badan tahay mana laha qeexitaan u gaar ah oo la isku raacay waxayna dhacdaa xindaabyada kala duwan ee nolosha sida qoyska waxbarashada ganacsiga siyaasadda shaqada xiriirka bulshada diinta iyo dhaqanka taasi waxay keentay in qof walba guusha uu arko hadba sida ay ula muuqatay tusaale qofka ganacsadaha ah guushu wuxuu u arkaa marka uu faa'iido badan sameeyo qofka siyaasiga ah guushu wuxuu u arkaa marka uu ku guuleysto kursi madaxtinimo qofka ciyaartoyda ah guushu wuxuu u arkaa marka uu gool ka dhaliyo iyadoo sidaas ah haddana gidigooda waxaa biyadhac u ah xaqiijinta ama gaarista arrin la tiigsanayay marka ay timaado qeexidda kelmadda guul waxaad arkaysaa in qof walba uu ku beesgareynayo aragtidiisa ama baahidiisa gaarka ah waana arrin dib ugu laabanayso kala duwanaanshaha bini'aadamka si kale haddaan u dhigno sida ay wejiyadeennu u kala duwan yihiin ayay maskaxdeennuna u kala duwan tahay sida ay maskaxdeennu u kala duwan tahay ayay aragtideennuna u kala duwan tahay sida ay aragtideennu u kala duwan tahay ayay qeexitaanada guushana u kala duwan yihiin haddaba waxaa jira dadyo fara badan oo guusha u qeexay siyaabo kala duwan haddii aan eegno aqoon-yahanadii wax ka qeexay guusha waxaa ka mid ahaa Maria Masumbuko waxa uu yiri guushu waa in aad isku dhiibto alle waa bixiyaha nolosha dhabta ah ee aadunuhu raadiyo guushu waa xakamaynta nolosha in aad qaabayso qorshayso nolosha iyo in aad xaqiijiso sidii aad ku gaari lahayd yoolkaaga Dr. Seymour Epstein wuxuu yiri dadka guusha gaara waqtigooda kuma lumiyaan fikrado aan micno lahayn waxay ku fikiraan fikrado wax lagu dhisi karo waxayna og yihiin in ay guushoodu ku xiran tahay nooca fikradahooda waxa kale oo la yiri haddii aad doonaysid inaad guulaysato waxaad caado ka dhigataa in aad samayso dadka kale wixii ay samayn kari waayeen guushu waa kelmad soo koobaysa wax si wanaagsan u qabsoomay ugu dambeyntiina ku dhammaaday heer sare guushu waa hadafkaaga oo aad gaarto iyo helitaanka nolol dhammaystiran adduunyo iyo aakhiraba ku anfacaysa haddaba waad guulaysan kartaa guushu waxay u baahan tahay dadaal iyo dhabar adeeg ballanteenu waa guul nagu soo biir janalkeena guusha nolosha 1